laascaano xaaladeeda ayaa weli mid dagaal dhinacyaduna waxa ay kala helayaan gurmadyo xoog leh oo ku wajahan sidii qolo kasta ay u xaqiijin lahayd inay gacanta sare yeelato dadaalka caalamiga ee la xiriira in xaaladda si nabada lagu dhammeeyo ayaa isaguna weli dhinaca kale sii garab socda abaabulka dagaalka Mareykanka ayaa dadaal xoog la gelinaya sidii ugu dambeyn labada dhinacba ay u gaari lahaayeen in xabadda la joojiyo isla markaana wadahadal loogu dhameeyo qadiyadda taagan dowladda Itoobiya ayaa dhinaceeda iyana wada dadaal xoog badan oo la xiriira in labada dhinacba ay isfaham gaaraan dadka deegaankana ay ka tashigoodu u noqdo waxa ugu weyn ee ay doonayaan inkasta oo wadahadalladu ay socdaan haddana weli ciidamada ayaa lagu daabulayaa gobolka waxayna u muuqataa Soomaaliland inay isku diyaarinayso mid ka mid ah duulaamadii ugu xoogganaa ee ay ku qaada Laascaano si ay gacanteeda ugu soo celiso sida uu hore ugu dhawaaqay taliyaha idman ee ciidanka Soomaaliland hogaamiyana qaybta 12aad Faysal Cabdi Bootaan xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland ayaa ku taageeray madaxweyne Biixi go'aankiisa Laascaanood waxayna sheegeen in Puntland ku soo duushay gobolkaas mar kale cirro ah gudoomiyaha xisbiga wadani ayaa sheegay in dadka Laascaano dagaalkeedu uu yahay mid sokeeye laakiin dhinaca kale waxa uu sheegay inay taageersan yihiin ciidanka Soomaaliland waa hadal gaar ah oo ay yeesheen ismada dhaqanka iyo sidoo kale safiirka dawladda Mareykanka ayaa lagu soo qaaday arrinta dagaalka Mareykanku waxay sheegeen inay ka shaqeynayaan sidii xalka dambaysa loo gaari lahaa isla markaana nabad loogu dhameyn lahaa xaaladda ismaduna waxay u sheegeen dawladda Mareykanka inay iyagu nabad diyaar u yihiin deegaankooda ay joogaan duulaan aysan deegaan kale ku ahayn balse iyaga duulaan lagu soo qaaday dad badan oo Soomaaliyeed ayaa siyaabo kala duwan uga faalloonaya arrinta dagaalka waxa ugu badan ee la isweydiinayana waxa ay tahay caqabadaha iyo fursadaha dadka deegaanka iyo Soomaalilandba arrintan ay uga dhigan tahay su'aashaas waxaanu hor dhignay Marcus Virgil-Hone oo ah bare wax badan ka qoray isdiidooyinka u dhaxeeya dadka gobolada Sool Sanaag iyo Cayn iyo Somaliland. The challenges are first of all there's a humanitarian disaster in the region, it's dry season. Dhibaato badan ayay dadku wajahayaan oo ay u horeeyaan masiibooyinka bini'aadantinimo. Xilli abaar ah ayaa lagu jiraa. Boqolaal kun oo qof ayaa barakacay. According to international organizations have been displaced in the area. 150 ilaa 180 kun ayaa barakacay sida hay'adaha caalamigu sheegeen. waxay ku barakaceen inta u dhaxaysa Laascaanood Buuhoodle Buucama Garowe iyo Taleex dadkaasi waxay u baahan yihiin gargaar degdeg ah. The second big challenge is that Laascaanood has been destroyed to a large degree. I don't know exactly how much. Caqabadda labaad waa in Laascaanood ay duntay ma garan karo cabirka saxda ee guryaha dumay ee burburay laakiin guryo badan ayaa burburay kaabayaasha dhaqaaluhu ay ku jiraan korontada biyaha iyo cisbitaalka magaalada ayaa dhaawacyo halis ay soo gaareen haddii aynan baabiinba seriously damaged if not destroyed. This is another challenge to establish a civilian life in Laascaanood. You need a lot of rebuilding. sidaas darteed waa caqabad kale oo ay adkaan doonto in dib loo dhiso maadaama ay dhaqaale u baahan tahay kaasoo inta badan ka yimaado qurba joogta ugu horeyn iyo dadka kale which probably has to come from the diaspora first. The opportunity of course will be that Dhulbahante for the first time in actually more than 30 years. dabcan fursaddu waxa ay tahay in dadka deegaanku markii ugu horeysay muddo 30 sano ay yeesheen mowqif cad oo siyaasadeed oo ay ku kala dooranayaan jihada ay u dhaqaaqayaan waxay isweydiinayaan ma waxaan ku biirnaa Soomaaliya ma waxaan ku biirnaa Somaliland oo aan hadda macquul ahayn qaabkee ayaan uga mid noqonnaa Soomaaliya ma waxaan dhisanaa maamul federaal oo inoo gaaro oo ka kooban Sool Sanaag iyo Cayn mise waxaan qayb ka noqonnaa Puntland haddii Puntland aan ka simid ahaano miyaan ahayn aragtida 1998 ee dhismaha Puntland was established. dood kale oo taagan waa in dadka deegaanku markii ugu horeysay ay si cad u muujiyeen sida ay uga soo horjeedaan aragtida gooni goosodka mar kale Marcus ayaa sharaxaya. I think people didn't really hate the Somaliland administration per se. I think there was a political distance between Dhulbahante, the ordinary Dhulbahante, the majority of the clan, and waxaan filayaa in dadka deegaanku aynay nacayb gaar ah u hayn Somaliland balse waxaa jirta kala qaybsanaan siyaasadeed oo u dhaxaysa dadka rayidka oo ah kuwa u badan iyo maamulka Somaliland muddo dheerna soo taagneyd. Dhulbahante did not support the independence of Somaliland full-heartedly in the 1990s. They were all
dadka deegaanka ayaa si dhab ah u taageerin Somaliland sagaashanaadkii xilligaas oo ay jireen dadaalo nabad ku wada noolaanshaha oo ay u dhamaayeen dhulbahante Isaaq Warsangeli Gudubirse iyo Ciise negotiated about peace, and this was very important for everybody, but the political project of Somaliland was not. waxay ka wada xaajoodeen nabad waarta oo cid walba dan u ah laakiin mashruuca siyaasadeed ee Somaliland ma ahayn mid dadka deegaankan ay taageersan yihiin dabcan mashruuca siyaasadeed wali Somaliland kuma guuleysan inay noqoto dal madax bannaan So successful. I mean, nobody would have believed in the 1990s that Somaliland would become an independent state and would go so far. Now we are 32 years later, and Somaliland has been established quite strongly. labadii sano ee la soo dhaafay Somaliland waxa ay samaysay waxyaabo waaweyn sida helitaanka deeqa caalamiga mashruuca maalgashiga Mareykanka iyo Imaaraadka ee Berbera xiriir dhaqaale oo xooggan oo ay la samaysay Ethiopia sida Berbera Corridor waxyaabahaas oo dhan waxa ay dhaceen labadii sano ee u dambeeyay Strengths in Somaliland. And I think Dulbahante and Warsangeli and others also realized that if they do not position themselves clearly now. waxaan filayaa dhulbahante Warsangeli iyo kuwa kale inay aamineen in Somaliland aqoonsi caalami heshay oo iyaga aan boos uga banaanayn waxyaabaha hadda xaaladda sii xumeeyay ee abuurmay ayaa ah in labadii sano ee u dambeysay laascaan ay ka jirtay xasilooni darro gudaha Somaliland ayaa ilaa 2007 gacanta ku haysay magaalada balse waxay ku guul daraysatay in ay nabad iyo xasilooni ka abuuraan laascaanood That really not manage to establish a lasting stability and peace in Las Anod. This is at least the subjective position of many ordinary residents from Las Anod. They felt not secure in their own town. tani waa arinta ugu muhiimsan ee sababtay in dadka rayidka ee laascaanood ay xasilooni ku dareemi waayaan magaaladooda Somaliland waxay u muuqatay in arinta uu ku xalliyo xal military ahaan waxaa jiray arrimo dhowr ah oo dadka deegaanka aan raali gelinayn On military, so to say, securitization of the place. arrinta ugu weyn ayaa hanaanka siyaasadeed ee loo maray dadka deegaanku waxa ay rabaan Soomaaliya marka waxaan ku qeexi karaa arrimaha gudaha oo isbiirsaday oo ugu dambeyn qarxay nacaybka dhabta waxa uu yimid markii magaalada duqeyn lagu bilaabay waxaan ka wadaa markii ciidanka Somaliland ay isku wareejiyeen magaalada dhamaadkii bishii January kadibna 26 bisha gantaalkii ugu horeeyay ku dhacay laascaanood taasi waxa ay bedeshay wax walba Somaliland administration and the Dulbahante in Las Anod became impossible, and the longer this fighting lasted over the last 3 weeks, waxaan macquul ahayna ay ka dhigtay wada hadal dhexmari lahaa Somaliland iyo dhulbahante marka dagaalku uu sii socdana waxay adkaanaysaa fursadda lagu wada hadlo waa sida ay xaaladdu ahayd 3 toddobaad ee u dambeeyay waxaana sabab u ahaa tallaabada military ee Muuse Biixi u arkay xalinta laascaanood Muuse Biixi and his government has taken to the problem of Las Anod. ma ogtahay maantaba inaad ka maarantid inaad tagto xawaalad haddii aad ku sugan tahay Yurub iyo Ameerika baysi waxa uu ka haqabtirayaa inaad lacag u diri karto ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo ku sugan gurigaaga iyo goobtaada shaqada kala soo deg App Store-ka iyo Play Store-ka